بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتيدا قروحدا بدن سو دوادا مفيعنتهين سيتهين ملدنتهين فرحد بش برواقو عمر دير عبادة الصوبان أيان إلهي سبحانه وتعالى إذن كرجينيا دمانتين با إلهي سبحانه وتعالى انت ينغحن وسنة صحينا وعافيو انت مارت عافمات قبطنا الله وسياديو بإذن الله الرحمن وحنا بابل إن شاء الله qof kasta fikir yar baa iskaga jira fikirkayga yar bal insha Allah inaan la qaybsado waxaan ciwaanka ka soo dhigay qof kasta wuxuu leeyahay ceebo badan oo Ilaahay u asturay waxa dhamaanteen rag iyo dumar waxaan leenahay ceebo inoo gaara Allah subhanahu wa ta'ala inoo asturay oo nu banaankeena ka soo dhiginin sida ay tahay habeen iyo maalin waxaynu ku taaganahay ceebaha ummadda Ilaahay ceebaha islaamka faafintooda ka hadalkooda dhaleecayntooda eedayntooda markaynu laakiin inta haddana ka nimaadno waxa inaga intee in lag bay dhibaato inagu tahay iyo effect intee lag bay inagu sameynaysaa dabagalkan aan dadka dabagelino subhanallah ilaahay subhanahu wa ta'ala baa yiri ummadayda ii nabadgeliya haddaad ummadayda ii nabadgelin waysaana ana idin dabagelaya marka dabagalka ilaahay subhanahu wa ta'ala ma ogaan karno ilaahay ma awlaadu inaga soo galaya ma caafimaadku inaga soo galaya ma cadaabu inoo diyaarinaya xanuun kulul inagu ma garan karno subhanallah ilaahay baa yaqaana ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu ina qabtana wuxuu ina qabanaya qabasho xanuun kulul uu ina sii daynaynin bal ayadoo ay taasi jirto oo haddana ilaahay subhanahu wa ta'ala inagu yiri ummadaydiiyay dulmiga ana iska xaaraantinimeeyay idinkana waa iska idinka xaaraantinimeeyay ee dhexdiina hays dulmiinina fiiri waa amar ilaahay inuu yiri imaartay ina farayo inaan dadka dulmiinin haddana ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu inoo sheegayaa kare inuu isaga naftiisa iska xaaraantinimeeyay inagana inaga xaaraantinimeeyay haddana dardaaran idinku dhexdiina hays dulmiinina iyadoo saasi jirto ayaynu iska dhaga tiraynaa waxaynu ognahay oo kale inuu jiro wax la dhaho nabsi inuu jiro oo maanta haddaan gabar yar ama wiil yar ama gabar Soomaaliyeed oo miskiinada oo iska xanuunsanaysa aan dulmiyo waxa hubaal ah oo 100% aan hubaa inuu albaabkayga biri soo garaacayo oo ay aniga arintii ugu dhacayso maantana markaad ina eegtid qof inaga baxsanaya ma jiro qof dhintay baa inaga baxsanayno san fiiriyooga hore ku sheegay maamada weyn ee marwada ah waxaan halka ay page-keeda ku soo qortay Facebook-geeda Cabdullaahi Yuusuf wuxuu ahaa qofkii ugu horeeyay ee bilaabay xabad Soomaaliya burburka maanta ka taagan Ilaahay bay tir cadaabka ku fogeeyo subhanallah wa na'uudu billah iskama celin karo oo ma dhigi karo idaah oo amalkiisi waa la laabay buugiisi waa la laabay qalinkiina wuu qalalay wax kasta uu geystay shar iyo khayr bana Ilaahay ba hortaala la hawla wala quwwata illa billah waxa ka sii daran inta qof bila aadana ee dhintay habeen iyo maalin qabriga laga soo toosanay la rifayo waxa ka sii daran ilmaha yar ee innocentiga ah ee xanuunsanaya ceebaha iyo xumaanta iyo dhibaatada lagu hayo ee dadkeena Soomaaliyeed u geysanayaan waxa ka sii xun gabdhaha yar yar ee masaakiinta ee qurbaha ku cusub dhibka loo geysanayo iyo beenta iyo jarka looga talaabsanayo ee xitaa sharciye aan jirin la dhahayo kii sharciga saxda ah laga lubinayo la dhahayo waxaasi ma jiro la cabsi gelinayo la dhahayo ilmaha laga qaadaya halkana lagu geynaya sidana lagu yeelaya iribad baa lagu siinaya balaayada lagu akhrinayo la hawla wala quwwata illa billah beenta iyo madalufinta ay dhibka haysta gabadha yar ay haysta waxa ka xoog badan oo ka badan dhibka hooyo Soomaaliyeed oo qurbaha uga soo horeysay ay ku sameynayso marka maraharka qaarkood waxaad isdhahaysaa war ummadeena Soomaaliyeed maxay inta xun wax uga aragtay tusaale yar haddaan idin weydiiyo maanta waxaan meelaha Facebook ku arkay aniga maalin bay ii tahay hooyooyin khadka isa soo wada gashtay oo dhowr ah hooyo anigu markaan leeyahay naa kasta oo wax dhashay hooyaanu aqaana ama ha yaraato ama ha weynaato khadka isa soo gadashan waxay leeyihiin gabar Soomaaliyeed baan raali galeynaa ku darsabay leedahay oo tii kalena caydeedii ku dar gabar Soomaaliyeedna waa la raali galiyaa gabar Soomaaliyeedna waa la caayaya la hawla wala quwwata illa billah waxaan isweydiiyay marka dadkani maanagayna waalayaan mise iyaga iskooda u waalan waxaan kaloo aan la sii weydiiyay labadii malaga garbaha u saarnaa ee shirkii khayrka u kala qorayay miyay ka dageen oo ma fursad baa la siiyay taas ayaan isweydiiyay
waxaan kaloo isa sii weydiiyey fideogaasi recording buu noqonayaa halkaasuu oolayaa xumaan iyo samaan waxaad geysatay maalinta lagu xisaabinayo oo lagu soo hordhigaya mana lihid fursadaad kaga fakatid haddaad wax wanaagsan ka tagtidna wax wanaagsan buu kuu noqonaya marka yacni intaasoo mucjisaa dadka isugu darsamaysa mararka qaar waxaad isdhahaysaa wiilkaaga yar ama gabadhaada yar ushid gabarh Soomaaliyeed wax ka faa'iido habar qaylinayso oo balaayo sheegaysa ama naag qaylinayso balaayo sheegaysa kasoo horboodaysa heer waxaa laga yaabaa in gabadha yari inay guurkii xitaa Soomaalida ka cararto ilaan habeen iyo maalin message xun baa loo soo gudbinaya halka anaga markaan soo korayna farxad iyo wanaag guurkana looga sheegi jiray oo marwooyin sheekaysanaya aanu dhageysan jirnaa oo gabdha yar yara ama aanu wax wanaagsan iyo qurux arki jirno wax negative aan arki jiray ilaa wax maartay positive mooyaane hadda inanteere maanta gabadha social media ka qaylinaysa dhageysataa wiil Soomaaliyeed oo dhan guurkiisa way ka cararaysaa bisaraxana ma jiro nin adduunka jooga oo nin Soomaaliyeed ka qiimo iyo sharaf badan ma jiro runta haddaan isku sheegno maanta waxaad soconaysaa wiilkaaga ushid wiil Soomaaliyeed ama wadankii jooga si wadankiisa wax uga barto wiilkaas qof buu caaya ama qof buu ku dhagan yahay ama reaction xun oo wuxuu sameynaya aad u fool xun oo gabadh qaawanaadan arki lahaynba ayuu isagu intaas oo boqol oo qof tusaya markaasaad waxaad dhahaysaa kana kala cararayo ilmuhu kaaga dayane gabadhiina Soomaaliyeed saas looga carray wiilkiisa looga cararaya ilaahay subxaanahu wa ta'ala inta wanaaga sheegta Allah inoo badiyo inta xumaanta sheegtana Allah ka masaxo ma dhahayo Allah inaga fogeeyo Allah ka masaxo oo kuwa saxda iyo xaqa isu sheega xumaantana iska reeba Allah inaga dhigo hadaynu eegno dhaqankeena suuban ee Soomaaliga wuxuu 70 waxaasdaasa 70% diinteena islaamka buu ka yimi يعني سوء وناكسن يحي سوء أدق يحي سوء في عين يحي بس ده سقياست صحنا وكيم ودد الدين كرق بيننا إسلام المهم وحنا هيا ولا لها يوم مركز عيب إسلاميت كفوا جنت حي وقوت هذا بنان كيمانسا ما عندنا حاسة وحنا خي قبر سوماريين قبر بيلايف كسوق قبط عاد أنا قول لك سادتك الصومالي ده قبر بيلايف سوق قبطي قبر بعاسة حيكون ده وين مشرود وبنتي ويكنتي سبحان الله إلهي مركع عيبها جو أسطوريو الأدوجو خاراتسن قبر دي كاميرا ده هوس سوق قبطي سبحان الله وحي إلهي أوجي هاي بان أركي يعني لوجي هي قبر ده كعايسة يدا بهاي ستبا هذا ير فضود أي إلهي كوكو كشفيا بل حسابتنا وكعدم بيسا إسكداية مركع عيبها إن إلهي أسطورو ceebaha dadka aynu asturno ceebaha dadka yeena farfaarin ta ilmuhu ka xanuunsan yahay aynu nabad gelino tan ninku ku xumaaday aan nabad gelino aynu wanaag u geysan hadii kale aan ka aamusno ta maaragtay xanuunsanaysa aynu maaragtay ilaahay u barino u ducayno ta gabadha yar khaldanta aan u ducayno ilaahay inoo soo hadeeyo gabdhaheena yar yar inaan xumaan u soo jiidin maanta hadaan gabadh yar daba galo gabadhayda way koraysaa berrito waxay noqonaysaa qof aan control kari waa laana gabdheer baan daba galay hadaan ummadda islaameed nabad galiyo mar walba anigana waa mar walba ilaahay ceebahayga asturo xumaantaydana ilaahay subxaanahu wa ta'ala iiga dambi dhaafo qof kastoo taada eegintaadan qof kale eegin wanaaga aan isfarno jidka wanaagsan aan isku hanoonino aan xumaanta iska reebno ummadaha ilaahayna mid dhintay iyo mid noolbaba ilaahay baa la xisaabtamaya aan nabad gelino gabdhihii Soomaaliyeed waxay kaga dhigtay maamooyinkii waliba Soomaaliyeed waxay kaga dhigtay video baan hayaa waan soo dhigaya video wax aad haysaan ma jirto wax allaale waxaad haysaan ma jirto laana waaba soo dhigi lahaydeenba ma ba haysaanba iska daaya handadaadatan fool xumada aad isku handadaysaan idinkoo dumar waaweyna markii aan yaraa laba wax afsado iskuulkii ugu horreysay lagu daray laba eray baan ka bartay qoristooda qof caruur kastana way qori jireen oo labada eray bay qori jireen dhulkay ku qori jireen darbigay ku qori jireen waa marka u horeysa ee alifbeetada aad baratid waa laba wuxuu easy aad qori kartid labadaas in ugu horbarana qof kasto dhalinyaro soo maray uu garanaya maanta labadii eray bay dumarkii waa weynaa imrowooyinka hooyooyinka ay social media la taagan yihiin labadii eray anigu markaan uulada ahaa ee 8 jirka ama 7 jirkan qoristooda bartay ee la igu garaaci jiray George la dhihi jiray ayay labada hooyooyinkii waaweynaa iyo raggii waaweynaaba maanta suuqa la taagan yihiin labadii eray bay ku dhawaaqayaan war aan isku xishoono
aynu xumaha dadka iska dayno in ilaahay ceebaheena asturo ceebaha dadka aan iska dayno ummadda ka dhinta iyo ka noolba aan nabadgelino nafsiyadan aynu kabadhada iyo guryaha ka buuxsanayno aynu iska dayno waxa berri inagu soo noqonaya yaynaan ku dhaqmin dulmiga amaanta geysatay aakhiraba lagula sugi maayo iyadoo cadaabtii ilaah iyo xisaabtii rabbi ay ku hortaalo ayaa ifka lagugu soo keenaya bal ka waran maanta markaan ummadda ilaahay oo dhan shiikh iyo shariifba aan caayo ee maalinta qiyaamaha ay intay saa ii soo istaagaan ay dhahaan ilaahayow noo weydi maxay nagu cayday ilaahayow wayna cayday maxay nagu cayday noo weydii oo salaadaydii yaray soonkaygii yaraa ee xoogaagii aan awalba fiicnayn loo qaybiyo dadkaas ee weli qaar dhahaan ilaahow annagaa hadhay ee rabbi subxaana watacaala dembiyadooda intuu soo qaado korka intuu iga saaro cadaabta jeega igu tuuro laa xawla walaa quwata illaa billah adduunkan aan jeclay aan rabo inaan ku noolaado ee aan cimri ku qaato aan rabo haddii ka waran layga soo afqabto dhibkaan anigu ummadda u geystay carabkayga wixii ka soo baxay laygu ciqaabo oon adduunka raaxo ku joogi waayo taasna soo igama dhibadna marka aakhiraba intaan laysla gaadhin marka ummadda ilaahay aan nabadgelino walaalayaal waxaan aad idinku adkaynay ummadda ilaahay nabadgeliyo asxaabteeda qaaliga mar walba waxaan ka codsanaya haddii hadalladeedu khaldan yihiin qabta walaalahay baa tihiin waalidiintay baa tihiin kuwan waalidka u ahaa baa idinku jira qabta waxaad ugu tiraadaan waad khaldantay ummadda iska daa haddii aan ku saxanahayna iisoo sheega boorigaraam baan ka samaynayaa magac qurux badanna aan la soo bixi doono idinkana aan adii codayn doontaan magacaas insha allah biidmillaahi kariim aad ama idinku ii doori doontaan aad iyo aad baan idin salaamay wixii dembiya allaha iga cafiyo wixii maaragtay aad wanaagsana miisaanka xasanaadka allaha i saaro ummadeennana allaha is wada sakhira lana soo wada hadeeyo dhammaantoodba ilaahay subxaana watacaala anigana waxaan ka baryaa wax kasta aan ku hadlo inuusan recording maalinta qiyaama laysoo hordhigo ilaahay iiga dhiginin dhammaantiin aad iyo aad baan idin wada salaamaya anigoo idin jecel idinkala reebaynin ummadda soomaaliyeedna hal midba ii wada tahay ilaahay baana iga dhigay afarta koonana waa ka wada dhashay